waa muddo 4 maalin kaliya ayaan waxaan ku riday 2 kiilo iyo bar. inta ayaan idin soo saari doonaa kiiladkayga 28ka Juun intay ahaayeen iyo 2 Yuuli inta ay tahay miisaankayga. 4taasi maalmood waxa markaasi aan cunayay ee markaas aniga aan isticmaalayay quraacdayda, qadadayda iyo cashadayda iyo waxyaabihii markaas aan iska daayay oo dhan waxa aan qabto dhan 4taasi maalmood inta ayaan soo wada dhigaa adiga oo muuqaalka dhameyso. haddii aad ku dhibaneed miisaan ridis waxaan ku hayaa wadada ugu fudud aad ku ridi kartid miisaankaaga. 4 maalmood aan ku dhahay 2 kiilo iyo badh. waa wallaahi igu billaahi igu talaa in aanan been idin sheegaynin. bal muuqaalka daawada wixii ra'yigiinaana idinkane. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha qaaliga ee ku xiran janalkayga Munesa channel 2 meel walba adduunka joogtaan inay ugu caafimaad qabtaan rajeena. fadlan haddii ay tahay marka ugu horeysa aad janalkayga soo booqanaysid waxaa ka codsanaa inaad subscribe ii saarto gambaleelkana aa furto si video walba aad soo geliyo oo kugu soo dhacmaba u noqoto daawadaha ugu horeeya. aad iyo aad u mahadsantiina idin leeyahay sida wanaagsanaa mar walba ila socotaan kommentidiina quruxda badan leh ducooyinkii dhiirigelinta isugu jiro. jasaakumullahu khayrna idin leeyahay. soo dhawaada walaalaha cusub iyo walaalihii hore ila joogi jirayba muuqaalka marba haddii aad daawataan like ii saara haddii ay awoodaan asxaabtiin iigu share gareeya si markaasi dad idinka oo kale oo wanaagsan ay iigu soo biiraan ayna ka mid noqdaan daawadayaasha channelkeena. haddii aan ku dhibaneed miisaan dhimis qarash badan aa isgelin jirtay, aad rafaadi jirtay, silac badan aad dareemi jirtay, maanta waxaan ku wadaa wadada ugu sahlan aad ku dhimi kartid miisaan. muddo 4 maalmood ayaan waxaan kusoo riday miisaan la-eg 2 kiilo iyo bar. waa xaqiiq wax beena ma laho. waxa markaas aan sameeyay 4taasi maalmood iyo waxyaabaha aan sameynin insha Allah maanta rabaa inaan idin la share gareeyo. haddaba walaalahey qaaliga sida hadda u jeedaan waxaan soo saaraa meeshaan aan soo saaraa miisaankana arkaysaan waa 74 kiilo dhibic 4 waaye. miisaankan waxaa ahaa taariikhda markii ay ahayd 28ka bisha hadda dhamaatay ayaan koray. subax ayay ahayd xilliga aan hurdada kasoo toosay inta aanan wax cunin waxna aanan cabin. kadib markii aan musqusheedii aan kasoo dhameystay qofka haddii ay kaadihaysa xitaa waa inuu soo kaadiya calooshiisii iyo jirkiisii oo markaasi eber inuu miisaanka koraa. xilligaas ayaan koray miisaankan. miisaankaygana wuxuu ahaa 74.4. subaxi waaga markuu ii bari waa maalinkii 28aad waaye. waxaan cabaa waxay ahayd subax markii aan soo toosay kafeey iyo liindhanaan iyo biyo kulul. markii aan cabay muddo kasoo wareegatay saacad ilaa nus saac waxaan samaystay 2 xabo ukuna iyo 2 qaando oo boorash ah. haddii aad rabtaan insha Allah sida waxyaabaha loo sameynayo waa idin soo gelinaa. iyo 2 qaando boorash ay isku garaacday kadibna waa aan dubtay quraacdaas ay kusoo baxday. okay qadadii soo hartay. qadadana sidaa u jeedaan meeshaan waxaa ii yaala 4 qaando oo cambuuladan aan isticmaalay iyo qudaartaas broccoliga iyo maxay ahayto midkan kale oo cagaaran iyo midka cadka iyo karooto oo biyo huf lagu sii kaliya ayaa isticmaalay. 4 qaando oo cambuula. taasi maxay ahayd? waxay ahayd qadadeeni. cashada ayaa la gaaray. cashadana sidaa u jeedaan waxaan samaystay smoothie ayaan samaystay oo ka koobnaa faroolo iyo moos yar iyo maxay ahayto canab iyo maxay ahayto gabal yar oo tufaax ah. intaas ayaa habeenkii casho ka dhigtay. biyana waxaan cabayaa waxay ahayd 3 litir ilaa 2 litir inta u dhaxaysa oo biyo ah. maalinkeeni saas ayaa noogu dhamaaday. maalinkii waxaa la gaaray inta aan ka bixin waxaan sameeyay 30 daqiiqo oo baaskiil aan kusoo socday ayaan sameeyay. jimicsigu waa muhiim. maalinkii 29aad markii ay noo bilaawday sidii oo kale kafeegaygii ayaan samaystay. quraacdeediina waxaan ka dhigtay xabad ukun ah, nus koob oo boorash ah iyo maxay ahayto jab moos ah ayaan isku shiitay. kadibna saas ayaan u dubtay. shaax iyo waxaa ku cabay ahayd biyahaygii. qadada ayaa la gaaray. qadadan waxaan samaystay kaabish yar saa u jeedaan iyo jab fish ah bes wax kaleento liindhanaantaas ayaan ku darsaday. waxaa la gaaray cashadii. cashadana waxaan samaystay smoothie markaas oo fruit yar isku jirjiro
iyo markaas jayseed aan ku dhex darsaday. maalinkii 30aad ayaa la gaaray. sida caadada ahayd kafeegaygii ayaa cabay. waxaa caado ka dhigtay inaan samaysto subax walba quraacdii xabad ukuna, nus koob boorash ah, iyo maxay ahayto nus koob boorasha iyo jab moos ah. waxaan ku shiidayana waxay tahay caanaha lowfaadka ah. quraacdii markii aan cunno qadadina waa saa u jeedaan. waxaan samaystay broccoli qudaartii isku jirjirtay iyo ansalaato. waxaan ku darsaday olive wax kale kuma darsanin. qadada ayay ahayd. kadibna waan baxay oo waxaan aaday banaanka oo orod ayaa aaday. baaskiilka ayaan qaatay. waxaana maqnaaday muddo 30 daqiiqo. biyahaygiina sida caadada ahayd waa cabaa. markii aan soo laabtayna waxaan cunay smoothie ayaan cabay. waxaa noo bilaabatay maalinkii koowaad aan u maleynaa inuu yahay sideedii oo kale kafeegaygii. quraacdeediina waxaan ka dhigtay sidaa ujeedaan xabadii ukunteed, nus koobka boorashka ah iyo jabka mooska ah. taas subax walba ayaan sameynayay. waana qarash yar yahay. qarash badan ma kaa rabo. wax qarash badan ma ahan. boorashku waa raqiis. waxaa laga yaabaa maalin walba jab moos aa isticmaalaysaa, ka badan ma isticmaalo. wax kale ma isticmaalayna. ani intaan hadda idin sheegaya kaliya ayaan isticmaal, wax kale ma isticmaalin. markii aan quraacda intaasi cunin qadada ayaa la gaaray. maalinkaas qadada waxaa ka dhigtay waa bedelay. waxaan samaystaa waxay ahayd qudaartii iyo waxaa soo qaatay iyo kaabishkii oo qayriin ah. waxaan ku darsaday nus koob oo maxay ahayd boorash ah. kadibna xabad ukun ayaa ku darsaday. biyo ayaan ku shiiday. dhirta faafilka ayaa kadibna ku dubtay. saas ay qadadeedii ku noqotay. cashada ayaa la gaaray. cashadan waxaa cunay koobkaas shaaxiga. casho iyo weliba waxay isku ahayd snack time isku ahayd. shaax saa ujeediin wax sokora ma laho. haddii aad rabtidna malab ayaa ku darsanaysaa, laakiinse wax sokora ma laho. waxaa cunaysaa ujeedaan waa boorashka la qalajiyey ee macaanka yarka leh ee leh fruudka markaas yani qalalanna lagu soo dhex daray. waxaa kaloo korka uga darsaday looska qalalan iyo waxyaabahaasa korka uga darsaday iyo sabiib ayaa ku jiro. qiyaaskiina markaas waa hal bakeeri waaye, kama badno, waa soo cabirtay. okay, waxaa la gaaray maalinkii markaas labaad ee taariikhda labada ay ahayd. waxaan samaystaa waxay tahay kafeegaygii sida caadada ahayd. kadibna waxaan samaystay sida caadada quraacday boorashkii nus koobka ah, xabadda ukunta iyo jabka mooska ahaa ayaan samaystay. qadadeediina waxaan ka dhigtay saa ujeedaan kaabash biyo bas kusoo kariyey iyo hilib lo oo markaas aan soo cabirtay. hadda ka horna sida loo cabiraayo waan soo geliyey janalkayga. fiidiyoyada gadaal u raac insha allah waa arki doontaa. markii aan soo cabirtayna kadib waa yareystay. biyi markii uu qaleysmay hal qaando saliid oo liba ku daray. bas waxaa kaloo ku darsaa waxay tahay waxyaabaha carafka ah oo markaas khalalan ayaan ku darsaday. intaas kaliya ayaan ku qadeeyay. kadibna waan baxay oo waxaa aaday banaanka. baaskiilkaygii ayaan qaatay. maalinkaygii oo dhanna biyahaygii si toos ayaa u cabaa. markii aan kasoo naqday kadibna cashadeedii waa taasaa. waa boorashka qalalan iyo furuud isku dhex jiro iyo koob shaaxa ayaa cabay. marka intaas ayaa miisaankaygii ku riday. waa muddo 4 maalmood oo aan ku riday 2 kiilo iyo bar. 4 maalmood markii aad 2 kiilo iyo bar aad ku ridid 8 maalmood meeqa kiilo ku ridi kartaa? waxaa ku ridi kartaa 5 kiilo ayaa 8 maalmood ku ridi kartaa. markii 10 maalin ay ku noqonaysana yani miisaan maasha allah oo aad iyo aad u badan oo 10 kiilo markaas cagcageenaayo ayaa ridi kartaa. marka walaalo ay qaaliga ah sidaan waa yani sida ugu fudud. hadda aniga 4 maalmood oo miisaankaygii aan kusoo dejiyey. marka waxaa idinka codsanaya insha allah inaad ka faa'iidaysataan kafeega liinta lagu darayna maasha allah inuu ii shaqeeyey. aniga waa kaasaa waa idin caddahay. hadduu ilaahay yiraahdo haddii markaas idinka isleedihiin munaysa ama wax marinaysa waxyaabahaas waa imaan doontaa in miisaankaygii uu wax ku darsamo. waxaana idin soo samayn doonaa aniga oo saan yacan u hadlaya inaan miisaanka koro ah idin duubaayo. kadibna aan idin tusaayo routine ahaan subaxii waxaa cuno, qadadii, cashadii, intaasoo dhan waa idin soo gelinaa si markaas aa u qanacdaan. wax walbana waa niyad. maalinka kugu horeysa way kugu adkaanaysaa. calooshaadana makaa ogolaanaysa in ay cunto garaamkan aadka u yar maadaama ay cuni jirtay waxyaabahaas. aniga inta aan waday dietkan 4 maalin waxaanan cunin bariis wax la dhaha ma cunin, bur ma cunin, rooti ma cunin,
ilaah afkeyga been ha ka dhoore rooti cad walaa madow waxyaabahaas dhan ma cunin sokor ma cunin saliid ma isticmaalin saa ujeediin marka waxaas aan wada isticmaalayna wax markaas yacni saliid leh ma ahayn markaan isticmaalayna hal qaando oo saliida korkeena uga darsado ayaa laga yaabay haddii aan macaan u baahdana furuudkaas qalalan ayaa isticmaali jiray wax lacagana kaama rabto wax qarashna kaama qaadanayo marka insha allah waxaa rajeynaa walaalayga qaaliga ah in aad ka heli doontaan ayna idin noqon doonto wadada ugu sahlan oo miisaanka aad ku dhimi kartiin miisaanka kor 4 maalmood kadib fiiri intaana idin dhahayna sameeya idinkoo ilaahay idinla og yahay oo wax beena aan ku dareenin iisoo sheega hadduu ilaahay yiraahdo muuqaalka haddii aad ka hesheen like saara si asxaab badan oo u dhiban oo hilibka ugu dhiban ee markaas ugu noqoto fursad ay uga faa'iideystaan ee miisaankana iskaga dhimi karaan noloshaada adiga ayaa bedeli kara ma ahayn nolosha kuma bedeleyso noqo mar walba qof go'aan leh oo hadaf leh oo higsi leh haddii aad tahayna guushaada mar walba waa gaaraysaa inta videoga mid lamid ah ku kulmi doonaan waxaa idinkaga sii tagaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu